wacan saaxiibayaal meel kasta aad joogtaan iyo si kasta codkayga idin soo gaarayo waxaan eegin doonaa falaaqeyn kooban oo ku saabsan kulankii Arsenal ay barajada barbaraha ay galabta la soo gashay kooxda Crystal Palace. Haddaba waxaan u qaadi doonaa dhowr qaybood oo ka sababtay in Arsenal ay kulankani barbara ku soo gasho. macal Arteta ayaa mar kale u muuqda inuu ku dhiibtoonayo kulamadiisa banaanka iyadoo labadii kulan ugu horeeyay uu ku soo ciyaaray oo labadaba u baraja ku soo galay. Inkastoo Arteta kulankiisa ugu horeeyay guusha Premier League uu ka helay Old Trafford kooxda ka ciyaartay Manchester United kulankii Emirates ka dhacay isagoo kulankiisa labaad oo xiriir badiyay kulan FA Cup Arsenal ay hal yeebel uga takhalusay. Laakiin mar kale shax xoogan oo la mid ah shaxdii uu United dhabarka uga jabiyay ayuu ku soo galay ciyaarta ay galabta Crystal Palace la ciyaareen laakiin ma aysan noqon. qodobka koowaad Arsenal 30 daqiiqo ugu horeeyay waxa ay muujiyeen tayaan caadi ahayn marka la isku soo duubo 30 daqiiqo ugu horeeyay Arsenal kulankani waxay ahaayeen kuwo cajiib ah baaskooda gagaaban isku dhibashada ah isku xirnaantooda daafaca ee dhamayska tiran deganaanshaha dambe ee Leno weerarka isku xiran ee Pepe iyo Laka Oba iyo Ozil ayaa u muuqday Arsenal inay xaq u lahaayeen ama u qalmeen guusha ugu horeeyay ama goolka ugu horeeyay ee uu Pepe uu dhaliyay Aubameyang. Lacazette iyo Pepe iyo Ozil ayaa kasoo shaqeeyay goolkan iyadoona ugu dambeyn xidiga Lacazette uu dushiyay xidiga lagu magacaabo Aubameyang oo goolka koowaad u dhiibay. 15 daqiiqo ugu dambeeyay qaybta hore kulankana Crystal Palace ayaa u muuqda kuwa cadaadis saaraya Arsenal laakiin Arsenal oo daafacooda waa mid isku dhameystiran oo dhan kasta ka dhameystiran ayay ku dhameysteen hal yeebar markii la isku soo laabtay Crystal Palace ayaa iyaduna ahayd kuwa cajiib ah oo goolka barbara helay kadib kubad ku dhacday daafaca David Luiz. qodobka labaad waxa weeye roosihi ama casaankii xidiga lagu magacaabo Aubameyang kulankan waxa uu qaatay roosihiisa macasaankiisa ugu horeeyay abid inta uu ku soo jiray xirfadiisa kubadda cagta waayihiisa France waayihiisa German iyo waliba waayihiisa dhawaa ee Arsenal ma uusan qaadan wax casaan ah laakiin caawa galabta aan dhahay casaan ayaa loo tagay roosadiisa macasaankiisa ayaana dishay tayo kasto ee Arsenal ama riyo kasto Arteta kalaha in uu soo gaaro guushiisa ugu horeysa Arsenal ee banaanka meel ka baxsan garoonkiisa. qodobka saddexaad dhaawacii xidiga lagu magacaabo Lucas Torreira iyo waliba soo gelidii xidiga Matteo Guendouzi. qaybta daba markay sida u bilaabatay Arteta ayaa u muuqday in uu ku khasbanaa inuu saaro dilaayiisa daafaca ama burburiyaha dhexe ee Arsenal Torreira inkastoo uu keenay xidig tayala oo mustaqbal leh haddana Torreira waxa uu ahaa deganaanshaha wadnaha dhexe ee kooxda ee dhanka daafaca badalkiisa ayaana keentay in Crystal Palace ay soo qaado weerar rogaal celisa iyadoo dhexda Arsenalna ay ahaayeen kuwo isku dhexyaacsan. qodobka afraad ee keenay Arsenal in ay badin weydo kulankan waxaa kamid ah oo aan u sababeynaa in Arteta uu la soo dahay xidiga Martinelli waxaa la keenay markii Aubameyang casaan la siiyay laakiin cid kasta kulanka daawata ayaa arkaysa waxa uu sameeyay waxa uu qarka u fulay inuu Arsenal ku hogaamiyo gool kadib markii kubad uu ka soo shaqeeyo u dhiibay Lacazette ayaana u sii dhiibay Pepe laakiin Pepe ayaa garaacay birta iyadoo kubadii soo laabatay oo si kasta u dhalin kara Lacazette uu goolhayaha ku garaacay. xidigan da'da yar reer Brazil ee 19 jirka ah waxa uu leeyahay mustaqbal fog oo hortaala. qodobka kale oo Arsenal guusha u diiday waxa kamid ah tayaxumo kale iyo waliba tayaxumo kale oo soo hoyatay caaw mar kale Lacazette. kulamadii ugu dambeeyay Lacazette waxa uu ahaa mid isku dhexyaacsan inkastoo uu si fiican ula shaqeynayo weerarka oo goolka wadcaawiye ka ahaa haddana caaw mar kale waxa muuqatay inuu ahaa mid boor ah ama mid aad u liita waxaana uu ku khasban yahay inuu haatan booskiisa ka difaacdo xidiga reer Brazil ee soo kacaya Gabriel Martinelli. isku soo wadaduubay saaxiibayaal Arsenal mar kale ayay barbara soo gashay haddaba waxyaalo muhiim ah kulanka laga bartay waxa kamid ah in 11 gool uu dhaliyay Aubameyang 17 kulan oo ciyaaray kulamada London Derby ama kulamada kooxaha ka ciyaara London. Arsenal 5 kulan ugu dambeysay banaanka ay ku soo ciyaartay kadib tagitaankii Unai Emery wax guul darro ma soo gaarin laakiin kaga daranta ayaa ah in 5 kulanba
ay dhibic ay soo urursadeen. haddaba intaas ayaan kusoo koobaynaa saaxiibayaal falaaqeyn kooban oo ku saabsan oo kusoo koobaynay kulanka Arsenal ay barbaraha la soo gashay kooxda Crystal Palace.